Assalaamu calaykum. Muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa 15 xaqiiqo kuwaasoo aynu ku soo sameynay cilmi baaris aad u ballaaran. Lambar 1 boqolkiiba 40 dadka diida in ay sameeyaan xiriir jecel waxay wajahaan walaac dhinaca caafimaadka ah. Lambar 2 mararka qaar wadada ugu fiican ee lagu xaliyo dhibaato waa inaad joojisaa inaad in badan ka taxdirto shaygaasi, yacni aadan siinin wax ihtimaam ah. Lambar 3 qofka sida dhabta ah kuu jecel waa qofka xanuunkaaga ka akhristo indhahaaga, halka qof walibana uu aaminayo dhoolla caddeynta ka muuqata wejigaaga. Lambar 4 gabdhaha waxay jaceylka ku qaadaan waxa ay maqlaan, halka wiilashu in ay jaceyl qaadaan ay ku xiran tahay hadba waxa ay arkaan. Midaasina waa sababta ay dumarku u isticmaalaan make upka, wiilashana u caadaysteen beenta. Lambar 5 inaad qof u xiisto adigoona awood u lahayn inaad qofkaasi la kulanto si fudud ayay u saameyn kartaa nafsadaada. Caadifad ahaanna waxay kuugu abuuri kartaa walaac aan kala go' lahayn. Lambar 6 waa macquul weliba si aad ah inaad jacayl u qaado qof markii ugu horeysaba aad kula kulanto xaalad halis ah amaba khatar ah. Lambar 7 xiriirku wuxuu jiri karaa waqti aad u fog, waa marka dadka kale aadan la wadaagin waxyaalaha ku saabsan xiriirka noloshaada. Lambar 8 in aad qof hab siiso ku dhowaad 20 daqiiqo jirkaagu wuxuu soo deynayaa maadada loo yaqaan oxytocin, taasoo sababi karto inaad qofkaasi in badan aamini karto. Lambar 9 dadka ku caanbaxay in ay dadka siiyaan talooyinka ugu fiican badanaa waa dadka keliga ah ee aan lahayn lamaanaha. Lambar 10 marnaba dib ha ugu laaban qof aad horay isku jecleedeen, si walbaba ha u xoog badnaado xiriirkii idinka dhexeeyey. Inaad dib ugu laabato waxay la mid tahay buug aad horay u soo akhrisatay oo aad ka warhayso sida uu ku dhammaanayo buuggaas. Lambar 11 u xiisada qof aad jeceshahay waxay kugu sababi kartaa insomnia, fikirka aad ku fikiraysana in aad qofkaasi la midowdo waxay kugu sababi kartaa hurdo la'aan. Lambar 12 si taxadir ah u dooro lamaanaha aad nolosha la wadaagayso, waa haddii aad doonayso in aad dhasho cunug lagu faano oo iyaga la mid ah. 13 xiriirku wuxuu muhiim u yahay caafimaadkaaga sida ay muhiim u yihiin cuntada iyo jimicsiga amaba aalamiintada. 14 haddii uu qof si dhab ah kuu jecel yahay wuxuu heli doonaa ujeedo marmarsiyo, sidoo kale wuxuu samayn doonaa dadaal dheeraad ah in uu kula kulmo darteed. 15 marka aad si dhab ah qof u jeceshahay wax macno ah ma samaynayaan da'da uu qofkaasi jiro, masaafada uu kuu jiro, dhirirkiisa, culeyskiisa, keliya waxaasoo oo idil waa tirooyin, laakiin marnaba ma falgali karaan dareenka aad xambaarsan tahay. Muuqaalkeena maanta halkan ayuu ku eg yahay. waxaa inoo balan ah muuqaalka xigo adigoo caafimaad qabo iyo anoo nabad qabo. Sidoo kale waxaan kuu rajaynayaa farxad iyo reenreen.